السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الكسر دوار إليس تي barnaamijka ila istiiba arrimaha bulshada daawadayaal waxaan idinku haynaa dhacdooyin naxdin loo ka dhacay gudaha Ogaadeniya. Dhacdooyinkan waxaa kamid ah magaalooyin barakacin loo geystay dadkii iyo duuyadii ku noolaana laga dhigay waxa la dilay in xabsiga loo taxaabay iyo inuu qaxday deegaanada kale ee dhulka Soomaalida Ogaadeniya. sawirka halkaas idinka muuqday waa magaalada Sancade oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar. muuqaalka halkaas ka aragtaan wuxuu ahaa malcaamadii magaalada wax lagu baajiray ciyaalkii magaalada dhulka banaana waa dhulka ay deganaan jireen xaafadaha. halka guriga idinka muuqda waa guri ay gubeen ciidamada Itoobiya. waka dhulka ay gubeen ciidamada Itoobiya dabkii baa ka muuqda. waa guriyihii lagu ganacsan jiray taraabiistii wata maran karaatoontii lagaga cararay. waa guriyihii wax albaaba ma lahaan. daawadayaal sida barnaamijka hore ugu xusnay waxaa dhulka Ogaadeniya ka dhaca dhacdooyin fool xun oo la beegsado bulshada Soomaalida Ogaadeniya. dhacdooyinkaas oo isugu jira xasuuq wadareedyo, magaalooyin la gubo, dad xabsida laga buuxiyo, dhac iyo kufsi. haddaba Ilays TV ayaa heshay muuqaalo naxdin leh oo muujinaya dhibaatooyinkaas ka dhaca gudaha Ogaadeniya. waxaan barnaamijkan si gooni ugu soo qaadanaynaa magaalada Sancade oo laga barakaciyay shacabkii ku noolaa dad iyo duunyaba. magaalada Sancade waxaa ku noolaan jiray in ka badan 700 oo qoys. waxay dadkaas ahaayeen beeraley iyo xoolo dhaqato. tuulada Sancade hadda xilligan way haawanaysaa wax dad iyo duunyo ku noolina ma jirto. haddaba daawadayaal bal xaqiiqda dhabta ee magaalada Sancade ku dambeysay nala daawada. sawirka halkaas idinka muuqday waa magaalada Sancade oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar. magaalada Sancade waa meel aad iyo aad caan ugu ah dhulka beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada. magaalada Sancade waxaa deganaan jiray dad aan ka qiyaasi karo inuu ka badan yahay ilaa 600 ilaa 700 oo qoys. magaalada Sancade waxay afka ku haysaa goob ku haboon goob beereedada oo laga qodan jiray beeraha. magaalada Sancade dadka ku noolaa waxa uga bixi jiray dooxarada dhul beereedka labada xilli ee roobku doo ee guga dayrtii mid walba. waxaan hanti aan ku qiyaasi raashin aan ku qiyaasi karo ilaa 60 tan ilaa 70 tan oo loo isticmaali jiray noocyo kala duwan sida isticmaalka cuntada iyo ganacsiyada. magaalada Sancade meel waxay ahayd ay ku yaalaan guryo aad u fara badan, hoteelo, dukaamo, cooshado, meherada kale oo meherada shaaha iyo dad fara badan ay ku noolaayeen. guriga hadda aad arkaan daawadayaal waa masaajidkii magaalada Sancade. albaabadiina hadda waxaa ka fujistay saan ila xogaale ay noo sheegeen ciidamada Itoobiya oo ku qaatay gaari. hadda xilligan xaaliga magaalada Sancade wax uga sokeeya ilaa 15 kiiloomitir oo deegaanka ku nooli ma jiraan. muuqaalka halkaas ka aragtaan wuxuu ahaa malcaamadii magaalada wax lagu baajiray ciyaalkii magaalada. dhulka banaana waa dhulka ay deganaan jireen xaafadaha.
bal haddana aynu eegno magaalada Sancade iyo wixii u dambeeyay magaalada Sancade wakaas maanta waxaad aragtaan inuuna cid bini aadami ku noolayn muuqaalada aad aragtaan waa dhulkii ay ka ganacsan jireen dadka Soomaalida ogaadeen ee halka deganaan jiray halkan waxay lahaan jirtay guryo aan ku qiyaasi karo inay ahaayeen ilaa 200 hotel konton maqaaxiyood oo shaqo oo aan soo tiri koobi karin waxa deganaa reer aad iyo aad u fara badan oo kamid ah bulshada Soomaalida ogaadeen guryaha aad aragtaan waxay ahaan jireen hoteelo maqaayado iyo cooshado maanta magaalada Sancade wax joogay ma jiro saad muuqaalka ku aragtaan dadkii halkan deganaan jiray waxay u qaybsameen 3 qaybood qayb ay laayeen ciidamada Itoobiya qayb ay xidheen qaybtii soo hadhayna way ka hajirtay wadankan waxayna u qaxeen meelo kale oo aan laga aqoonin si ay uga badbaadaan gumaysiga Itoobiya waka dhulkii dadku deganaan jireen maanta banaanka ah wax ku nooli ma jiro waa saxara cidla waxa gala shimbiraha iyo xayawaanada guryahaas tuuladani waxay ku taalaa wadada isku xidha degmada Dhagaxbuur ee gobolka Jarar iyo magaalada Garbo ee ka tirsan gobolka Fiiq halka guriga idin ka muuqda waa guri ay gubeen ciidamada Itoobiya wakaas wax dhismo oo hadda ka muuqda ma jiro wuxuuna ahaa gurigii ugu weynaa magaalada Sancade xilligii ay deganayeen dadkii degmadan lahaa waka dhulka ay gubeen ciidamada Itoobiya dabkii baa ka muuqda dhulka banaan hadda ay gubeen aad aragtaan waxa deganaan jiray xaafadihii magaalada waka dhulka dabku holciyay ee amaanta wax bini aadam jooga jirin wakuwa guriyihii lagu ganacsan jiray taraabiistii wata maran karaatoontii lagaga cararay wakuwa guriyihii wax albaaba ma lahaan dukaankani waxa dukaanka ugu weyn magaalada Sancade maantana waa cidla wax noolaa oo ugu nimid nawaaxiga magaalada Sancade iyo iyada midna ma jiro wakuwaas guriyihii macal albaabada waxa ka fujistay ciidamada Itoobiya oo daas hadda afka saaran gurigani waxa guri weyn oo bakhaara oo la dhigtay raashimada ka baxa gaarka tuulada Sancade ee dooxada waa dhiire daawada halkaas waxa inoogu warbixinta aan ka soo diyaarinay magaalada Sancade intaan barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waa aniga oo Leila iyo Bahad Ileys oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo wali mara